وكما عبد الرشيد حسن عبد النور جنن عبد الرشيد جنن waxa uu ku dhashay duleedka degmada Doolow deegaanka Geedweyne ee waqooyiga gobolka Gada dhaca waxa uu ku soo barbaaray isla deegaankaasi balse bilowgii 1995 ayuu ku biiray garabkii al-Ittixaad al-Islaami ee Gada ka ariminayay kuwaasi oo dagaal baan gobolka kula dhaxmaray ciidamada Itoobiya oo 1996 si rasmi ah gobolka u soo galay si al-Ittixaad ula dagaalamaan عبد الرشيد waxa uu gacan yaro u ahaa barigaasi gudoomiye ku-xigeenkii ururka al-Ittixaad Sheekh Maxamed Macalin Nuur oo ay qaraabo dhow ahaayeen in muddo aan saaxada lagu arag waxa uu mar qura noqday gudoomiyaha degmada Doolow ee xuduudka Itoobiya ku taal bilowgii 2009 xilligaasi oo saaxiibtinimo xoogan ay dhaxmartay isaga iyo saraakiil Itoobiyaan oo xuduudka joogay sida Cornel Teglay iyo Cornel Ali oo sanado badan aaga xuduudka ka talin jiray inkastoo uu saameeyay qudhooda isbedelkii Itoobiya ka dhacay sanadkii hore waxa uu kula heshiiyay baad dhaqaale oo isagu siin jiray taasna bedelkeedii u filin jireen dhammaan dalabkiisa ilaa ugu dambeyn mas'uuliyiin dawladeed ay ka mid ahaayeen xildhibaan Barihiiraale xildhibaan Maxamuud Siid Aadan iyo xildhibaan Xasan Deer ay Itoobiya xirtay dalab isaga ka yimid awgii عبد الرشيد جنن waxa uu gobolka Gada ka geystay tacadiye xoogan sida dil dhac tarxiil oo u geystay hal door bulsho mas'uuliyiin dawladeed nabadoono iyo dhalinyaro dhamaantood si bareer u laayay dadka uu sida bareerka Gada ugu laayay عبد الرشيد جنن ayaa lagu qiyaasaa 30 ilaa 40 ruux oo iskugu jira hal door bulsho waxa uu caburin xoogan ku haystay degmooyinka dhaca waqooyiga gobolka Gada oo cid aan isaga ahayn aysan ka hadli karin sida degmooyinka Doolow balad xaawo iyo luuq ganaana oo dhamaantood oo xoog shisheeye iyo mid gudaha ah uu ku maamuli jiray dhinaca kale waxa uu xiriir gacan togleyna toos la lahaa al-shabaab uu ku heshiiyay in degmooyinkaasi isaga maamulo ay ka dheeraadaan taasna bedelkeeda halkooda ku qaataan qadar lacageed oo ku heshiiyay ugu dambeyn maanta ayuu gacanta dawladda soo galay kadib muddo sanado ah oo ay jarneed waraaqdii waaranka ah ee lagu soo xiri lahaa taasi oo ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir oo ay gal dacwadeed ka furteen qaar ka mid ah dhibanayaasha oo ehelkooda sida loo kaca iyo kibirka ku jira ku laayay dhibanayaasha ayaa dawladda ka naawilaya inay cadaaladda hor keento عبد الرشيد جنن si xukun kasta oo muteysto loogu qaado